الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي كوبي الصدنات كتاب كيني عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن القيم رحمه الله. هذا وحان كسو جرنا شكري جيبان ولودني يا قيبه سي وحان قلينا كيف نكون من الشاكرين سيدين أنقلنا تدك شاكرين تا وإلهي سبحانه وتعالى أماني وكل شكرية سيدين وغمد نقلنا arrimahan soo socda ayaa la dardaarmaa waa marka koobaade bitaqwa allaahi waalcamali bitaacatihi cabsida ilaahay baa looga mid noqon karaa shaakiriinta iyo daacadiisa in loo shaqaysto oo qofku ilaahay uu ateeco. rabbi baa wuxuu leeyahay walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adillah fattaquu allaha lacalakum tashkuruun. yani ilaahay markuu u gargaaray asxaabu badrin oo dad yar ahaa oo jamaacadii gaaladii tirada badnaydna kasoo horjeedeen ayaa waxaa layidhi alla ka baqa. marka alla ka baqaad ilaahay aad ka baqdaan waxaad mudan tihiin inaad noqotaan shaakiriin ood ilaahay ku shukridaan ood gruubka ku biirtaan. marka cabsida ilaahay waxay qofka ka dhigtaa inuu ku biiro dadka ilaahay subxaana watacaala shaakiriinta. marka sheekh culimada mufasiraya ayadaasa wuxuu yidhi macnuhu wuxuu noqonayaa fattaquunii fa inahu shukru nicmati. iga baqa ilaahay subxaana wataala wuxuu le iga baqa, taasina waa nicmada aan idiin nicmeeyey shukrigeeda iyo mahadnaqeedii weeye. arrinta labaad oo looga mid noqon karo shaakiriinta ilaahay subxaana watacaala dadka aadka ugu shukriya rabbina uu ammaanay waxaa kamid a bilqanaacati waalridaa bima qasama allahu lak, in lagu qanco oo raalli lagu noqdo wixii ilaahay uu kuu qaybiyey, wuxuu alle ku siiyey. bal u fiirso, rabbi waxa uu ku siiyey nolosha intuu kaa siiyey, maalka intuu kaa siiyey, reer wuxuu kaa siiyey, caruur wuxuu kaa siiyey, xoolo wuxuu kaa siiyey, qurux wuxuu kaa siiyey, caafimaad waxa uu kaa siiyey. allah subxaana watacaala ma dhammayn kartide waxa uu ku siiyey noqo qof ku qanacsan. ayib, waxaa u tagaa la yidhaahdaa rajulun ilaa axad alculamaa washakaa ilayhi faqrah. waa qiso, laba qiso cajo badan. waxaa jira qisada koowaad waxaa weye nin baa wuxuu u tagay nin sheekh ah, wuxuuna u sheegtay inuu yahay faqiir. dadku aad bay u sheegtaan markay sabool yihiin oo de waxba gacan lagu haynin, ruuxu inuu tasawul sameeyo uu dadka maalin walba meel ka istaago. masaajida wadarta kuwaa taagan, jideedkaay taagan yihiin, ummadiiba meelba loo istaagi, yani sidaas iyo inuu sheegto anugu sidaanana xaalkaygu waa sidaan. jazac iyo argagax ayaa ku jira. marka faqrigiisiibuu u sheegtay ninkan sheekha ah, saasaanahay, faqiir baana, waxba gacan kuma hayo. ninkii caalimka ahaabaa damcay inuu ninkii wax tuso oo uu tuso inuu yahay nin ilaahay u nicmeeyey. wuxuu ku yidhi niyow miyay ku farxad gelinaysaa inaad indhool tahay oo maalin lagu siiyo ilaahay inuu ku siiyo 10,000 oo dirham, yani 10,000 oo dirham in lagu siiyo laakiin indhaha lagaa qaado ma rabi lahayd? wuxuu yihi maya. wuxuu yidhi miyay ku farxad gelin lahayd inaad hadli karin oo dadka aamusan en hadlin aad tahay oo 10,000 oo dirham lagu siiyo? wuxuu yihi maya. wuxuu yihi miyay ku farxad gelin lahayd inaad waalan tahay oo 10,000 oo dirham lagu siiyo? wuxuu yihi maya. wuxuu yihi miyay ku farxad gelin lahayd inay gacmaha lagaa gooyo iyo labada lugood oo 20,000 oo dirham lagu siiyo? maya. wuxuu yihi ninka caalimka ah amaa tastaxyi an tashkuu mawlaaka walow cindaka nicamun b50,000. haddaba niyow miyaadan xishoonaynin inaad sheegatood ilaahay ka sheegata mar walba adigoo uu ku siiyey nicam oo 50,000 u dhigma ayaad haysataa? ilan wuu ku bedelan waayey soo maa. marka nicam 50,000 u dhiganta ama ka badan isagoo alle ku siiyey, haddana miyaad ka xishoon weyday inaad mar walba ilaahay ka sheegato? ilaahay baa saa yeela aad tiraahdo. ninkii wuxuu gartay marka carafa arajulu madaa nicmat illaahi calayh, nicmada ilaahay uu u nicmeeyey weynanka intay la eg tahay. wuxuuna gudagalay inuu alla ku shukriyo, raallina uu ku noqdo xaaladiisa, dib dambana uma sheeganin baa layihi qofkaasi. waxaa jira qiso kale oo taa iyaduna obasiid camal ah kasoo horjeeda oo rajul oo ibtalaahu allahu ilaahay uu ku ibtileeyey indhala-aan
gacmuhuna ay go-an yihiin, luguhuna ay go-an yihiin. bal hadduu fiirso, luguhu way go-an yihiin, gacmuhuna way go-an yihiin, waana indhala yahay. nin baa u soo galay, wuxuu arkay ninkii oo fawajadahu yashkuru llaha calaa nicami, ilaahay un ku shukrinaya, ilaahu nicamtaadii gashay. waa ninkii gacmaha goonaaye, lugaha goonaaye, indhaha la-aabaa afkaba ka qaadi maayo ilaahay shukrigiisa. marka ninkiibaa wuxuu dhahaya alxamdu lilaahi aladii caafani, waa kii gacmaha la-aaye lugaha baa wuxuu leeyahy alxamdu lilaahi aladii caafaani mima ibtalaa bihi gayri wafadalanii calaa kathiiri miman khalaqa tafdiila. xadiidkii buu akrinaya, ilaahaygiis waa iga caafiyey, waxuu dad badan ku ibtileeyey, anigana iga fadilay. marka ninkii baa la yaabo, yihi niyo waa maxay waxa ilaahay kaa fadilay oo sidaanaba tahay? wuxuu yihi niyahow, ilaahay wuxuu isiiyey, waxaan ku shukrinayaa an wahabanii lisaanan daakiran waqalban khaashican wabadanan cala albalaa'i saabiran. ilaahay wuxuu isiiyey carab ku dikriga ilaahay mar walba haya, qalbi khushuucsan, iyo jirkayga oo ku sabraya dhibaatada ay haysata. taasaan ilaahay ugu xamdinayaa buu yihi. ilaahay naga dhigo saabiriin shaakiriin. wallahu aclam.